Waxaa maalintii saddexaad magaalada Marke ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ka soconaya tababar ku saabsan maamulka iyo maareynta kaas oo loo qabtay maamulka magaalada Marke ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaanada hoos yimaada. Tababarka oo socday maalintii saddexaad ayaa waxaa wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ugu talagashay in sare loogu qaado xirfadooda aqooneed. Maamulka degmada Marka iyo guud ahaan maamulada hoos yimaada degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala iyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka iyo maaliyadda degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose Xasan Aadan Maxamed Diiwaan waxyaabaha ay ka faa'iideen inta uu socday seminaarka. Bismillahir Rahmaanir Rahiim maalintii labaad magaalada Marka waxaa ka socdo seminar loogu talagalay maamulka magaalada Marka iyo deegaanada magaalada Marka hoos yimaado sida Galweyn iyo Shalambood Buulamareer Buufo iyo Cilbareego Ismaaqool iyo eridaas dhan anagana waan ka soo qayb galnay hadii aan nahay maamulka deegaanka Janaale seminaarkaas wuxuu socon doonaa muddo 5 maalmood ah waxaa noo furay maamulka gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo senator Xuseen Alxaaji Cabdalle iyo gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Ali Axmed Waafo ayaa si wada jar u furay seminaarka waxaa lagu hadlayay aqoon kororsi waxa kala sidoo kale seminaarka waxaa ku jiray local authority-ga maamulada waxaa ka jira isqabqabsi nin walbo macnaha shaqada uu asiga leeyahay inuu ka seenno kale ayaa jirtay laakiin hadda qof walba waxa la fahamsiiyay shaqada uu ka leeyahay maamulkaas runtii wax aad muhiim u ah waxaan u baahneen in nala baro shaqooyinka aniga aan leenahay waxaan ka codsanaynaa maamulka naga sareeyo waxaan ka codsanaynaa in seminaaradan camalna ay soo badiyaan si loo ogaado capacity-ga anaga aan leenahay dadweynahan waxaan ka codsanaynaa in train noocan macnaha loo furo si ayagana loo arko dawladda waajibka saaran iyo ayaga waajibka saaran si macnaha loo kala ogaado waxaan rabaa inaan ka hadlo seminaarka maalintii labaad ka socda degmada Marko iyo waxyaabaha uu ku salaysan yahay seminaarkaas runtii seminaarkaanu waa seminaar maamulka degmada iyo shacabkuba ay u baahnaayeen aan dhihi karo wuxuu ku soo beegmay waqtigii loogu talagalay waxaan leeyahay madaxdii soo agaasintay oo u sareeya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane madaxweyne waa aad ku mahadsan tahay ahmiyadda iyo awoodda aad geliday maamulka degmada Marko iyo maamulka gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay u shaqeeyaan bulshada markaan u soo laabto faa'iidooyinka seminaarka ku jira waa aqoon kororsi waxaa lagu dhammaystiraa awoodda maamulka kaalinta qof walba uu ku leeyahay shaqada meesha taalla inaynan soo noqon aysan imaan mar dambe in qof ama mas'uula ama shacabku uusan garaweynin kaalinta uu leeyahay